su-aasha ugu dambaysa saa'ilkani waxa uu leeyahay waxa aan dukaan ku haystaa meelahan basasku ka baxo meel u dhow inta badanna waxaan aragnaa buu leeyahay rag iyo dumarka iyagoo basaskii wada raacaya oo kuraastii isku cidhiiriyaya marka dadkaasi xukunkoodu muxuu noqonayaa weysaduse ma jabaysaa haddii nin iyo gabadhi marka ay kursi wada raacaan oo jidhkooda u istaabto su-aasha ah raggii iyo dumarkii basaska wada fuulayay way isdhex gelayaan waa arrin weyntaas waxay u baahan tahay dadka mas-uuliyiinta inay gacan ku yeeshaan ee madaxda ummadda ah iyo sharkadda gaadiidka ayuu waajibkaasi saaran yahay in raggana qayb loo sameeyo dumarkana qayb shaqada dumarku meel noqoto ragguna meel iskuulka dumarku waa meel ka ragguna waa meel dadku marka ay dumarka iyo ragga la isku sii dhex daaya waxay sheegaysaa khayra la'aan macnaa dadku waa dad aan hinaanso lahayn waa dad shahaamad iyo ragnimada ku yartahay inan ninku uu raalli ka noqdo inantiisa ama xaaskiisa ama hooyadii inuu nin sidaa cagta uga saaro bawdadeeda waxay sheegaysaa khayra la'aan iyo xamaasad la'aan bay sheegaysaa doofaarka ficil la'aan baa loo cadaabay bay dhahaan soomaalidu ficil la'aan looma cadaabina gaalka iyo faasiqa ficil la'aan loo cadaabay oo aan ficil lahayn marka waa arrimaha ceebta aynu leenahay ayay ka mid tahay adduunyada waa macruuf dadka muslimiinta ah qaybo badan oo ka mida basas bay kala leeyihin rag iyo dumarku kuwa iskaga mid dhigaana sida baakistaan oo kale iyo waxaad arkaysaa dumarkuna waa qayb baska ragguna waa qayb weliba iyagu qaybta horey saaraan dumarka si ay u sii jeestaan ila haddii kaleo ay xagga dama fadhiistaan waa la khaawisayaa waa dabeecadaha ay leeyihiin bay ka midta marka wax la garan kari waaye maaha laakiin waa raganimo xumada inagu dhacdun bay runtii ka mid tahay waxba inaan afka dhowrine markaa taasina ma bannaana ikhtilaadka noocaasa ee ninka iyo gabadho ay isag fadhiisanayaan way ka sii dareenoo dadkeenna had iyo jeer markay runta sheegno dadka xagga edabta ugu sii liita waxaa ka mida qolyaha gaadiidka qolyaha jaadka qolyaha hiliblayaasha darawaliinta been miyaan ku sheegayaa intaa dee bacadlayaashan inanta dabada ku dhegayana ku dar sidii kii la odhan jiray ku tiiriye ayay kuraydeenni maraysaa in hablaheennii aynu ka xishoonayna xijaabnaa qaaliga inagu ahaa ay naaskiiya ku dhegaan xijaabka yidhahdaan kaale qasab ku iibso hilibliina wuxuu ku marayaa inuu dhiig ku saydha inantii ama qanjir darawalkiina inuu ku kaajaabu ku dhowaanaya kii yidhaah raggan iyo dumarkan sidan kala dhe afkaa lagaga boodaya orda oo u tago waa dadkiinniye wax ka soo qabtoo soo saxa wallahu aclam